ودورك كله ما ليسنا هود كوجر وحان لنا إنسو سودي بعيد ما ذكرنك ما جرى جيس كلاءات هي ستان وحاس كسر دودعية شبابك قواريج الشباب أو وحين نقدين هل هبشي يبلشوا هجومينيسا لمكاس بدعدا أو قوارجدا إن الله دجالنا ذلكاين أن كسرنا كنا عبادة دوننا كنا دوننا أنتاس أيام نجاقان 5 سنة كهر 14 أكتوبر مالين سبتيها 3 بركة قلبنimo waxaa dhacay masiibo weyn waxa hal markay qaraxii soobe ka soo galaaftay nafaf badan oo Soomaaliyeed waxa masiibadaas oo ay soo maleegeen arxan laawayaasha lagu waayay haliyeeyo hooyooyin aabayaal iyo walaalo Soomaaliyeed kuwaas oo ahaa rayid nolol maalmeedkooda la hardamaya qaraxaas ayaa ahaa dhagartii ugu weyneed oo ay soo maleegaan nabadiidku iyagoona isticmaalay karkii ugu dambeeyay oo ay karayeen waana caadada khawaarijta inaysan waxba u reeban maatada Soomaaliyeed ee muslimiinta ah iyagoo hadafka ay ka lahaayeen qaraxa inta leeg ka ahaa inay ku cabsi geliyaan dadiyowga Soomaaliyeed kuna muujiyaan awoodooda balse waxaa laga dhaxlay midnaan iyo dhiirnaan bulsho sheega dhacdadan ayaa danqinaysa qulubta dadka Soomaaliyeed ee waalidkood iyo walaalahood ku waayay masiibadaas balse dhacdadaas ayaa noqotay mid soo bandhigtay wejiga dhabta ee maleeshiyada arxanka daran ee al-shabaab kuwaas oo ku beer jilicsan jiray qaar ka mid ah bulshada inay diin iyo sharci islaam wadaan balse falka oo ka dheeraa falka suurooba dad damiir islaamnimo leh ayaa huuhaadoodii jidcad ku dhigay wuxuuna muujiyay qaraxa diin la'aanta haysan nabadiidka dableydooda iyo horjoogayaashoodaba la yaab ma laho argagixisada ayaa kuwa ka shaqeeya maalin walba daadinta dhiigga ummadda Soomaaliyeed ku dhawaad rubac qarni oo argagixisadu ku sugan yihiin qaybo ka mid ah dalka intaas oo ay qaraxyo gumaad bulshada geysanayeen ma jiraan ama lama soo helayo hal kaniisad oo Soomaaliya ku taalo oo qarxiyeen ku darso ma jiro qof Soomaaliya oo shaadan ku qabteen haddaba waxaad fahmi kartaa in al-shabaab ay diin faafin kaliya ay u diran yihiin inay yihiin burcadiimeed ku gabanaysa gardaysi iyo horjoogayaal wadaadda isu muujiya balse 5 sano kadib shacabkii Soomaaliyeed waxay qiiqsheen nabadiidka iyagoo u babacdhigay awood beenaadkii argagixisada haddii la dhihi jiray shacabka Soomaaliyeed waxay u nugul yihiin dhibaataynta argagixisada maanta waxaa gacan ku gambad ah arxanlaawayaasha waxaa iska soo dabadhacaya jawaabka qawaariijta al-shabaab oo waxay noqdeen hal heebshay iyo bulshada oo hugminaysa